السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أقيرت يوتيوب عن سلامي عشر كنا ما أنتو حكو سابسين سيدان ميك أب أسمى لهن أنكو استعمالنا أدوب فوتوشوب CS6 مركا إن 5K 4E3 أنت بو استعمالي كرتها إن عشردان وحلاقو تلددك باللاوغين كفايديستها مركا واقو جدا كبدان بكياج كان أسارن لنبا إن وح ملو ساري واي وانا لو سمين كلا فوتوشوب كان معناها إن waxa loo barno waxay tahay sida aad u bari sawiro macnaha aad u qurxuleed adiga saata u sameeyay marka in waxaan sameeynaa waa soo bilaabna casharka sida dadka bilaaway oo la qabsadaan waxa sameeynaysaa waa filmayo leeda open waa furaysaa sawirka aad marka soo qabsatay double click ayaa ku siinaysaa oo ku soo galaya qadka isla marka ku soo galo qofulka soo ka furaysaa double click ayaa siinaysaa okay ayaa leedahay waxa sameeynaa and duplicate and Ctrl J and Command J and key make استعمالنا Command J استعمالنا ودونه and استعمالها سجن and Ctrl J سيد دقسو بوسي أما رايت كليك ده كي كوفض كدونا على ذا new layer كدوره إسلام كان new layer سوي نيسو كدمنا واحد ما نسا and ماشي كلك يا ما نسا كلك عن استعمالها وان لابو F96FF هدارت إن 10 كلا سعتي نمبر كاس أيات استعمالها and waxa kale oo isticmaalina brush isticmaalaysidna oo brush tool isticmaalay mid inta markaan furno brushkaaga haduu sidan ayuu yahay 100 waaye and hardness-ka waa ina ka dhigtaa 0 waa ina geesa brushka ku saaray brushka marka dooranaysidna midna waa adag yahay midna waa qafiifka dooro marka qafiifka dooratid and color-kan aad soo diyaarsatid bracket-ka oo mataqaana ayaa ku weynaysanaysaa kadibna waad marinaysaa markii qofka kooga la tusaayo wuxuu isleeyahay in qofkan colorkan oo marinayo muxuu ka wadaa meesha magaale wax kastaba markay bilaaw yihiin macnaha way yara furxun yihiin laakiin markii xoogaa yar la wado way yara qurxoonayaan in muhiimadana waxay tahay adoo natiijada ogaanin hadal waa laga wanaagsan yahay ogow natiijada maxaa soo baxay oo kaliya inaad dhahdid taas waa muhiimada marka هذا دين عن كلام يعني ربنا هذا نبلاوني وكان وجدا ويربو بسنينا مركي هذا 10 لقوف شرحها هي مركي هذا يكونوا سميسين اسم لهن وين كلا دوينهين سبتو ان waxaan waxaan sameeynaa aniga kale dadka photoshop aad u isticmaalmay laakiin arday badan ayaa soo weydiisay macnaha photoshop casharadaas anoo muhiima marka aad ka faa'iideystaana muhiimadu waxay tahay aniga dhammaan waxa waaye inaan wada faa'iideysana muhiimada markii asaas ka dhigtay isla markiiba fiirso waxaad leedahay normal ayaa tagaysaa waxa ka dhigaysaa overlay ayaa leedahay colorkii aad ku ogeed wuu isbedelay markii aad wax leedahay marka hore waxaan ka wada ninkan maxaa waaye colorka oo marna hada ujeeda colorka uu iska bedelay hadii sidan loo dhaafo uu ku sii qurux badan yahay hadii meel badan ka leeyahiina hoosh waa sii wada kartaa dhib ma lahan wax kale ma jiraan حتى انت كان رعان هكا الولين waxaad tagaysaa meeshan ayaa furaysaa waxa soo dooranaysaa matqana release tool ayaa soo dooranaysaa kadibna waad ka tiraysaa sababtoo ah sawirka madur joogtid ee layerka dul joogtaa waad ka tiri kartaa waas macnaha qalad kasta waa inaad ogaataa hadii ka dhacaan in hasliin wax yar waa ka halaaween kadib waxaad tagaysaa filter ayaa tagaysaa kadibna puller ayaa tagaysaa kadibna meesha ayaa doona greenish puller ayaa ka sii dooranaysaa marka dooratid inta waana isku fiirisaa cabirka macnaha waa la socotaa sida adiga qafiif kartido kale qof wuxuu ka rabaa qafiif noocaas qof wuxuu ka rabaa qafiif noocaas laakiin muhiimadu waxay tahay sawirka iska dheereey ka saarto kan iska dheh sawirka waa iska dheereena xoogaa okay sidaan kala fiican filter kan furno blurka aan soo galno greenness kadib aan yara qafiifin marka okay hada ujeeda uu yara qurux yahay kadibna okay yeelana وانت سو كليا معناها wax kasta not difficulty lagaga dhiga marka hore marka argeysid sababtoo ah qofkii photoshop ka wax laga yaabaa photoshop inuu ku shaqeysatid ama photoshop kana web design tahay
wax kasta inaad baratid waa muhiimadaada sababtoo ah qof oo web designer inuu barto ama computer ku shaqeeyo inuu barto waxyaabo badan inuu barto sugayso marka insha Allah biidnillaahi kariim sawirka markaa la hadana inaad isku yareysid kulli waxa leedahay kan koro ayaa klik ku siinaysa hoos u soo degaysa midka ugu hooseeya amaane marka kii koro asaasa u saartid shiftiga riix kan taabo kulli markaas waxay tahay meeshii control ee la dhihi lahay sida kan koro tagaysa kadibna shiftiga aad qabanaysa right click ayaa leedahay kana merge layer ayaa leedahay kadib isku daray kadibna file menu ayaa furaysa save as ayaa leedahay kadibna waxa leedahay meeshan waxa leedahay png ayaa leedahay jpg jpg ayaa leedahay kadib magacaarta ula bixaysa magacaarta marka ula baxdina kadibna save ayaa leedahay sawirka sidaas ayuu kugu soo afgareynaya marka meeshan low medium maximum ka iska doorta inta badan kadibna okay ayaa leedahay waa intaas oo kaliya marka wixii su'aal qabtaana comment igu soo qora wixii muhiimada inaan kala faa'iideysan muhiimada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakum